bisharo dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Sweden iyo wadamada ku xiran waxaa loogu bishaareynayaa in 1 bisha Maarso iyo 2 bisha Maarso la qaban doono bandhig faneed lagu dhiirigelinayo nabadda iyo dib u dhiska dalkeena Soomaaliya gaar ahaan taakuleenta ciidamada qalabka sida ee geesiyaasha ah difaaca hore ku jira. bandhig faneedkan oo isugu jiri doona heeso ruwaayad iyo ciyaaraha hidaha dhaqanka ah ayaa waxa idin soo bandhigi doona fanaaniin ay kamid yihiin Cabdirasaaq Gaadaco, Cabdow Aramram, Saadiyo Soomaali, Idris Tembo iyo fanaaniin kale oo ah kuwii aad ugu jeclaadeen. halka kooxda Banaadir Midnimo ee hidaha iyo dhaqankuna halkaas ay ku soo bandhigi doonto ciyaaro hidaha dhaqana oo si weyn aad uga heli doontaan. haddaba 1 bisha Maarso waxaa lagu qaban doonaa magaalada Gothenburg ee caasimada labaad ee wadanka Sweden. adreskuna waa halka aad u jeedaan. sidoo kale 2 bisha Maarso waxaa lagu qaban doonaa magaalada Katrineholm waxaana si gaar ah bandhig faneedka ka dhacaya magaalada Katrineholm u imaan kara dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Stockholm, Eskilstuna, Norrköping, Örebro, Västerås iyo magaalooyinka kale ku xiran magaalada Katrineholm. kadamqanahayo dadka iyo dalkaba ay ku diirsadaan u ducaynayaan daynidinka yee shacab gurmada dhaqaalaha gurukaca shacab gurmada dhaqaalaha gurukaca bulxaraw gabadhi waa laga waramay oo yaa waramay gabadhi madaxi waa laga bedelay oo yaa bedelay gabadhi lugihi waa laga bedelay habugu bedelay gabadhi cididi waa laga bedelay hello bedelay gabadhi socodki waa wiiq haddaba bandhig faneedkan oo xiiso gaar ah leh waxa aad ku bixiso waxa ay ka dhigan yihiin waxa aad dalkaaga iyo dadkaagiiba aad ku bixisay wixii faahfaahina waxaad la xiriirtaa Marwo Baarliin Maxamuud Cadaawe oo madax u ah guddiga taakuleenta ciidamada qalabka sida bandhig faneedkan soo abaabulay. telefoonka aad kala xiriireysana waa eber 7 eber 45 45 78 haddaba ha moogaan oo ha u daymo la'aan yaa lagaaga sheekeene shaahid u noqo bandhig faneedkaasi xiisaha badan leh.